application-ka Todoist waa application lagu talagalay in lagu manage gareeyo waxqabadka ama lagu xusuusto shaqooyinka ku yaala. haddii ay noqon lahayd wax akhriska, haddii ay noqon lahayd shaqooyinka guriga ka qabanaysid, haddii ay noqon lahayd shaqooyinka xafiiska ka qabanaysid iyo waxyaabaha kale ee doonaysid inaad xusuusato markaad suuqa wax ka soo iibsanaysid. sidoo kale waana application aad iyo aad u fudud isticmaalkiisa. marka waxaan doonayaa inaan idin baro sida loo iskaga diiwaangeliyo, qaabka loo isticmaalo iyo techniques-ka uu leeyahay ee aad kusii horumarin karto isticmaalkiisa. marka soo dhawaada cashirkeena u horeeya waxaan doonayaa marka hore inaan isdiiwaangelino. si aan isku diiwaangelino waxaan isticmaali doonaa Gmail. dhowr qaab baad isku diiwaangelin kartaa. marka u horeysa website-ka aad furto todoist.com ama application-ka mobilka aad kasoo gasho, waxaad taaban doontaa get started. kadib wuxuu ku weydiinayaa inaad account hore aad u leedahay ku gasho ama inaad mid cusub iska diiwaangeliso. marka isdiiwaangelinta oo kale tusaale ahaan iminka sign up baan joognaa. laba option baad isku diiwaangelin kartaa: inaad isticmaasho Google account ama Facebook ama account Apple ID ama inaad email caadi ah geliso. haddii aad emailada kale sida Hotmail-ka ama Yahoo Mail-ka isticmaalayso, inaad kuwa geliso kadib aad iska diiwaangeliso sida. marka sida ugu dhow oo aan isleeyahay dadka intooda badan way wada haystaan waa account-ka Gmail-ka oo inta badan dadka mobiladooda uu wada jiraa. haddii aadan haysan Facebook baad isticmaali kartaa oo isagana caan ah. marka aniga waxaan ku diiwaangelin doonaa Gmail-kayga. kadib waxaan taabanayaa continue with Google. kadib wuxuu ku weydiinayaa account-ka aad ka isticmaalayso inaad aad awood u siiso inuu kasoo akhristo xogtaada. kadib aan account-ka baa iminka isticmaalayaa. waa account aan ugu talagalay ardayda inaan waxyaabaha isdiiwaangelintii waxa aan ku sameyno. marka continue baan oranayaa. kadib application-kii wuu igu soo celinayaa. intaa wixii ka dambeeyana iminka sida waan isku diiwaangeliyey. wuxuu ku weydiin doonaa inuu ku siiyo techniques iyo qaababka aad u isticmaali lahayd application-ka oo aan kaga hadli doono casharada soo socda. marka waxaan filayaa inaad fahamteen casharka qaabka la isaga diiwaangeliyo application-ka Todoist. marka casharkeena xiga insha Allah kaga hadli doonaa techniques-ka iyo qaabka loo isticmaalayo. marka aad baa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.